Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ka duuleysa horumarinta iyo tayeynta adeegga waxbarasho ee deegaanada Koonfur Galbeed ayaa maanta si rasmi ah ula wareegtay iskuulka Al Yaasir oo ka mid ah iskuulada ugu waaweyn ee ku yaala degmada Afgooye. Wixii ka dambeeyay Janawari sanadka cusub, ardayda wax ka barata si lacag la'aan ah ayay ku baran doonaan heerarka hoose, dhexe iyo sare ee dugsiga. Munaasabad mas'uuliyadda iskuulkan ay kula wareegaysay Wasaaradda Waxbarashada waxaa goobjoog ka ahaa Gudoomiyaha Waxbarashada Gobolka Shabeellaha Hoose, Al-Ustaad Cabdiraxmaan Cumar Sadiiq Xidig, Guddoonka Waxbarashada Degmada, maamulka iskuulka iyo waalidiin. Waana mid ka mid ah iskuulada ugu faca weyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. Ugu horeyn ayaa waxaa goobta ka hadlay Gudoomiyaha Waxbarashada Degmada Afgooye iyo kormeerayaasha waxbarashada gobolka iyo kan degmada. Marka laga bilaabo maanta bishaas mataqaana December 30 2023 marka hawshii iskuulkii waxa la wareegtay wasaaradda waxbarashada oo aan guddoonkeeda waxbarashada degmada ahayna waxa laga rabaa inay abaal mariso iskuulkan Al Yaasir wixii uu mudan yahay maadaama ay wixii wanaag loo wareejiyeen iyadoo dood iyo mataqaana aan waxba ka jirin. Iskuulku waa iskuulkii ugu tayo badan degmada Afgooye oo aan qirayo. Laga bilaabo maanta iskuulka waxaan u sheegaynaa bahda waxbarashada ama waalidiin degmada Afgooye inuu yahay iskuul free ah, dugsiga hoose dhexe inuu yahay lacag la'aan, waalidkana ay sidaa ula socdaan. Waxaan u mahadcelinaynaa maamulka iskuulka oo u dhabar adeegay muddada 23 sano iskuulkan sida wanaagsan ay ugu soo wareejiyeen wasaaradda waxbarashada. Inta waxbarasho la'aan ay maartay ku seegi jirtay lacag darteeda ama dhaqaalo, maanta wasaaraddu waxay maartay ay u guntatay in ardaydaasi dhammaan ay waxbarasho helaan biidnillaahi kariim. Mid ka mid ah waalidiinta carruurtooda wax ka barata iskuulkan ayaa wasaaradda uga mahadceliyay in wixii ka dambeeya bisha soo socota si lacag la'aan ah carruurtooda ay wax ku baran doonaan. Gudoomiyaha guddiga waalidiinta iskuulka Al Yaasir magaceygana la yiraahdo Yuusuf Abshir Cumar. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. marka hore awalan waxaan u mahadcelinayaa Allah subhanahu wa ta'ala ana keena koonkan quruxda badan. marka labaadna waxaan u mahadcelinayaa macallimiintii iyo maamulkii iyo mas'uuliyiintii soo daadisay iskuulkan quruxda badan maanta aan dhex taaganahay, kaas oo ka soo bilowday meel aad u liidata oo ahayd marka ugu horeeyay 3 macallin iyo 30 kursi ka soo bilowday maantana aad arkaysiin dhismaha quruxda badan ee gadaasheena ka muuqda, midka dhexe ee dhinacayna bidix ka muuqda, midka cusub ee bidixda uga dhagan, barxadda iyo dhammaan masaajidka, ceelka iyo geedahan quruxda badan oo har kale maanta aan harsan. Maamulka iskuulka Al Yaasir oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in si rasmi ah wasaaradda waxbarashada ay ugu wareejiyeen mas'uuliyadda iskuulkan. in iskuulka Al Yaasir oo muddo 23 sano ah gacanta ku hayna soo maamuleynay inaan ku wareejino wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed ayaan ku maadsanahay, ayaan ku faraxsanahay. adeeg 23 sano aan soo haynay ayaa maanta waxaan ku wareejinaynaa wasaaradda iyo dowladnimadana waa sugeynay maalin maanta oo kala ah in wasaaradda hawsha ay nagala wareegto bulshadana maxaa la dhahaa adeeg waxbarashada lacag la'aanta ah ee soo gaarsiiso. wasaaraddana iyadana waxaan leenahay mas'uuliyaddaas ay la wareegteen. waxaan idinka rajaynaynaa iskuulka tayadiisii waxbarashadiisii sida uu ahaa isa ka fiican inaad sii gaarsiisaan hadduu Ilaahay yiraahdo. marka wasaaraddu way mahadsan tahay, guddoonka degmada iyo gobolka iyo kormeerayaashaba inta waxaan ku soo dhaweynaynaa iskuulka Al Yaasir. Gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Shabeellaha Hoose ee Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed ayaa ugu horeyn waxa uu u mahadceliyay Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Koonfur Galbeed Mustafa Axmed Iidow oo uu sheegay in uu juhdi badan geliyay horumarinta adeegga waxbarasho ee deegaanada Koonfur Galbeed, isagoona sheegay in wasaaradda ay si rasmi ah ula wareegtay iskuulo ku yaala magaalooyinka Marka, Baraawe iyo Afgooye oo dhammaan ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay ku wargelinaysaa ardada Soomaaliyeed
waalidiinta bulshada qaybada kala duwan ee ku dhaqan degmada Afgooye gaar ahaan gobolka Shabeellada Hoose in dugsiga hoose dhexe sare Al Yaasir ee wasaaradda la wareegtay wasaaraddu waxay ka shaqaynaysaa had iyo goor inay bixiso waxbarasho bilaash ah waalidiinta ku dhaqan degmada Afgooye ina waaxigeeda waxaan ku wargelinaynaa laga bilaabo 1 bisha Janaayo wixii ka dambeeyay in iskuulka Al Yaasir uu yahay iskuul lacag la'aan ah laga bilaabo fasalada 1 ilaa 8 wasaaraddu waxay ku hoolan tahay har iyo haween inay gaarsiiso tuulo iyo degmo iyo magaalo waxbarasho free oo lacag la'aan ah si ay mataqaana uga faa'iideystaan waxaan si kale ula dardaarmayaa ardayda Soomaaliyeed maadaama wasaaradda waxbarashada ay lacag la'aan ka dhigtay dugsiga hoose iyo dhexe inay ka faa'iideystaan fursadda ay wasaaradda ay siisay maadaama wasaaradda ay u taagan tahay si ay u haqabtiri lahayd baahida ka jirto degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose macallimiinta Soomaaliyeed oo lagu soo qoray degmada Afgooyena gaar ahaan iskuulka Al Yaasir ayaguna waxa saaran waajibaadka loo igmada inay ka soo baxaan wasaaradana waxa waaye hor yaalo xuquuqaadka macallinkaas inay bixiso marka waxaan ku hanweynahay had iyo goor inaan mataqaana aan hor istaagno baahi walba oo meesha ka jirta saan u baabi'in lahayn aan u haqabtiri lahayn annaguna waxa waajib naga saaran inaan kormeer joogto aan ku sameeyno macallimiinta shaqadooda inay gutaan sidoo kale bogaadinayaa aan u mahadcelinayaa maamulaha iskuulka oo 23 sano oo gacanta ku hayay maamulka iyo macallimiinta hore u joogtay iyo maamulka qaybaheeda kala duwan oo ugu horeeyay Ustaad Cabdiraxiin waxaan ku bogaadinayaa sida qurxoon oo wasaaradda waxbarashada ay iskuulka ay ugu wareejiyeen in mataqaana lacag la'aan laga dhigo fasalka 1 ilaa 8 waxaan leenahay maamul Cabdiraxiin waxaan ku bogaadinaynaa wasaaraddana way og tahay kaalintaada iyo halka aad maanta ka joogtid waxaan rajaynaynaa iskuulada kale oo mataqaana oo dib isku dhigaya inay mataqaana ay soo raacaan maamulaha iskuulka Al Yaasir wadada uu raacay dawladnimada na deeqdo dawladnimada ayaa wax weyn ah Maxamed Qadar Warsan Radio Shabeellaha Hoose